ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. أهل السنة والجماعة waxay u qabaan oo ictiqaadsan yihiin qitaal الفئة الباغية, kooxda bagiga la timi ee xadgudubtay dagaalka lala dagaalamaya inuu yahay jaa'izan mid bannaan inuu yahay bay u qabaan, xataa tarjica ilaa ay u soo noqonayso fi'ada baaqiyadu ilaa taacati alimaam alcadl, imaamka cadliga ah ee cadaaladda u saaxiibka ah daacadiisa ay u soo noqonayaan. allah waxau yidhi wain طaa'ifataani min almu'miniina qatataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala alukhra faqaatiluu alatii tabغii xata tafii'a ila amri illah. fi'a baaqiya markay jirto fi'ada baaqiyada la dirira ilaa ay amarka ilaahay iyo xukunka ilahay iyo sharciga ilahay u soo noqonayso. hadda maaragta alfi'at albaaqiya waxaa loo jeedaa waa koox ku baxday yacni xaakimkii ama khaliifadii ama boqorkii magacii kastaha laga cabire yacni cid ku baxday weeye. ciddaasoo weliba khawaarijna aan ahayn. haddii waxa weeye marka ay gaalaysiinayaan oo cidaan marka waxa weeye cid muslimiin ah ay ku gaalnimo xukminayaan oo marka ay noqoto ictiqaadka noocaasa in loogu baxay, dee xaalkaas waa ka duwantay baaqiyadii maaha. laakiin fi'adan baaqiyadii waa fi'a markaysa markaa ku baxday xaakimkii bay ku baxeen, nooc ta'awula inay ugu baxeen. inay gaalo ka aaminsan yihin oo ku jihaadayaan maaha, daacadiina waa ka baxeen. waa fi'a baaqiya. fain bagat ixdaahuma cala alukhra faqaatilu alatii tabghii, taa xadgudubtay la dirira. jamaacat almuslimiin baa lala hadlaya ilaa amarka ilaahay iyo xukunka ilaahay u soo noqonayso, xataa tarjica ilaa taacati alimaam alcadl. haddaanu cadli ahayn ka warran ma lala dirirayaa fi'ada baaqiyada. a'immada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii marka cadli aanu ahayn isaguna daalim yahay, xaalka caynkaasa waxba marka waxa lalama dirirayo yacni fi'ada baaqiyada. ya bacdula'imma waxaa laga sheegay dachu yantaqim allahu daaliman min daalimin, yacni waxa weeye isaka ka gaabsada. waa yahay fi'ada baaqiyada haddii waxa weeye awood taacadii loogu soo celiyo aan la haynin, aan la xaqiijin karayn, fain bagat ixdaahuma cala alukhra faqaatiluu alatii tabghii xata tafii'a ila amri illah. waa lala diriri kara, laakiin dagaal keensanaya xataa tafii'a ila amri illaah lama kari karo. xaalka caynkaas ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu noqonayaa dagaalkaasi qitaala fitna, dagaal fitnuu noqonaya. waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu fii bacdi kutubihi ku sheegay. oo cali bnu abi taalib markay reer shaam la dirirayeen, dee in nooc bagyi ku sugan yahay reer shaam waxaa laga qaadanayaa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam, taqtuluka ya cammaar alfi'atu albaaqiya. cammaar waxaa ku dili doonta fi'ada baaqiyada ah ayaa ku dili doonta. waxaana dilay daa'ifadii mucaawiya nin ka tirsan baa dilay. saas aaweed baa saxaabada qaarkood dagaalkii ay marka hore ka gaabsadeen oo iska daayeen ilaa cammaar la dilay. markii cammaar la dilay bay waxay yidhaahdeen fi'ada baaqiyadu hadda ii muuqato. markaasay dagaalka soo galeenoo safka cali ka galeen. waxaa ka mid aha khusaymatu bnu haabit baa ka mid aha. ya hadda fi'ada baaqiyada ii muuqatay buui. ibnu taymiya wuxuu odhanayaa dagaalku haddii aanu markaa maqsuudkii looga jeeday aanu xaqiijin karayn, aan lagu xaqiijin karayn, oo ah xataa tafii'a ilaa amri illaah, ma noqonaayo mid la amraayo amra iijaabin walaa amra istixbaab. amar la waajibinayo iyo amar la sunnaynaayo midnaba mid la amrayo ma noqonayo. wuxuu noqonaya qitaalu fitna ayuu noqonaya. waayo shaygii markaa dee mafsadadiisu ka badan tahay maslaxadiisa wuxuu noqonayaa mid qitaal fitna buu noqonayaa. dagaalkii mafsadadiisu maslaxadiisa ka badan tahay muslimiin dhexdoodna ka dhacaya qitaala fitna ayuu noqonayaa. marka midaan bannaanayn weeye. saas aawoodee wuxuu odhanayaa jamaahiirtii saxaabadu way ka ictisaaleenoo dagaalkaa waa ka dheeraadeen. badankii saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam dagaalkaa kamay qayb gelin, laa safka mucaawiya walaa safka cali, midna may soo raacin. ya cidda ka qayb gashay ee saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid ahayd way koobnayd, 100 ma gaadhayn buuhi, bal 30 ma gaadhayn buuhi ibnu taymiya odhanaya. markay dagaalkaasi dhacayna 10,000 oo saxaabi waa noolaayeen, haddayna ka badnayn. calaa kulli xaal wuxuu odhanayaa dagaalkaasi wuxuu ahaa qitaalu fitna. wuxuu u noqdayna waxay tahay
waa in ujeeddada looga jeeday dagaalkaas aan la xaqiijin karaynin oo awood lagu xaqiijiyo xataa tafii'a ilaa amri illaah lama haynin marka arrin aan maqsuudkii ka dhalanayn ee dhiigguun inuu daato uun ka imanayso dee maslaxa kuma jirto in la amro ila maqsuud lidaatihi maaha waa maqsuudun lighayrihi dagaalku saas yadaa weeye saas aawadeed baa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam arrinkaa galay dhammaantood waa isku cilkaambiyeen hadday talxa tahay hadday cali tahay hadday zubayr tahay hadday caaisho tahay iyadoo caaisha dagaal aynay gelinayn laakiin dee markii hore lagu kaxeeyey islaax lagu kaxeeyey laakiin dee safun inay ku soo jirtay markaa safkaa ay ka mid ahayd iyo meeshaa inay xaadirtay iyo iyada marka waxa weeyaan markaa laga yaabo dad inay sababteeda dhici karto inay dagaalka ku sii galaan oo yidhaahdaan markaysa ummulmu'miniin baa maraysa meesha taas aawadeed bay u karaahiyeysanayso aad uga murugooti ya cali wuxuu yidhi waxaan jeclaystay 20 sano ka hor inaan dhiman lahaa aanan dagaalkaa geli lahayn xasan saasi leeg talxa saasi leeg tacaabiir noocaasay cabbireen way isku cilkaambiyeen nebiguna dagaalkaa ma ammaanin islaaxii buu ammaana ina bnii hada sayidun walacala allah an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin marka islaaxii buu ammaana dagaalkii ma ammaanin ciddii gashayna waa isku cilkaambida alfi'a albaaqiya axkaamteedu waxay noqonaysaa intay dagaalamayaan baa lala dagaalamayaa dhaawacooda lama dhaawac tirayo hadday cararaan lama eryanaayo kooda qabtay lama diilaayo xoolahooda lama khaniimaysanaayo wahaakada axkaamo khaasay leeyihin kii dhaawacma lama dhaawac tirayo kooda carare la eryan maayo kooda la qabtay la dili maayo taasina waa axkaamta ay leedahay fi albaaqiya ay leedahay axkaamu albuqaah baab la yidhahdaa jiro fiqiga iyo ku sugan waa arki kartaan taana saas weeye